بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان soo dhawaada tiimka qiimaha badan ee maanta maaragtay kulankeena kasoo qayb galay maasha Allah aad baan ku hambalyeynaysa waxaan naga soo qayb gasheen walaalihiin maqana insha Allah waxaan wadaagi doonaa recording kana diilay qadaro maadaama tii maalin shaqo loo shaqeynayo aad baan ka mahadcelinayaa sida idinku shaqooyinka xitaa ku jira maaragtay sidoo soo horteen waxaan ku hadlaynaa maanta conversation plankeena MDC ama my daily choice insha Allah bidnil kareem waxa aan rabaa haddii ilaahay nafta inoo daayo in aynu si qoto dheer uga hadallo content-ka sababtuna wax kale maaha wax weyn markasta markaynu ganacsiga sharxayno wax yar baynu hormarnaa waan guul marnaa laakiin si badan oo qoto dheer ugama hadallo marka maanta PDF-kii baan noo soo diyaariyey iyo qodobo kaloo muhiima insha Allah oo aan rabo in aan idinla wadaago si aynu u fahanno qaabka amaba dariiqa ugu fiican aynu dhaqaale uga samayn lahayn my daily choice because company walba wax gaar uu leeyahay marka maxaa u gaara my daily choice muxuu leeyahay qaabkeedeen inagoon energy badan iyo time badan iyo isgareynaynin because waxa fiican energy in loo isbangareeyo ama timeka si fiican family-na haysanaa shaqooyin kalena haysanaa dadka part time shaqeeya full time shaqeeya dadka qaar baa full time shaqeeya family haysta qof kasta wax ku xiriira arrimaha marka inagu timekeena ilaashanayna complan hadaynu fahanno waxaynu samaynaynaa dariiqa ugu fiican ka faa'iideysan lahayn marka taasaan isku dayaya maanta inta ugu fiican maaragtay inaad ka fahansiiyo ugu fudud ugu noqoto dheer insha Allah binal kareem inagu ku daahayna hadii la qadaro screen-kaygaan share gareynayaa complan markaad aragtaan PDF-ka chat-ka igu soo qora maadaama moodida wada geliyay in uu shaqeynayo iyo in kale insha Allah screen-kayga aad arkaysaan si aynu maaragtay hadii la qadaro uu halka uga sii socdo insha Allah qofku chat-ka igu soo qor ma idin muuqdaa PDF-kaas aan sharing ku sameeyay share gareeyay hadii la qadaro la soo qor bal insha Allah qofku chat-ka ku soo tuur inuu clear idin ku muuqdo si uu record uga soo baxaan rabaa muuqtaa everybody ma uu muuqdaa ma la arkayaa ما عندي كرتان كل لكن شاتنج إن شاء الله جزاك الله خير هي أوكي ما شاء الله تبارك الله نقص علينا وحين قال لنا ما أنتوا حويان training كنوا strategic training ويان strategic وحويان قاب كي أنو قياس الحين أما بو إيجان الحين team كنا organization كنا أنو بيستينو MDC because وحن ما كان جرحت الصوب له إن أنو حسنا ويان وحدة شنو طريقة ugu fiicnaan u dejin lahayn si aynu the maximum amount of money ama lacagta ugu badan ugu fiican uga samayn lahayn complan-ka weeyaan waxaan maanta ka hadlaynaa because training kasta waa wax trainingada qaar waxa weeyaan waxay ku saabsan yihiin just maaragtay recruiting iyo waxaas kan waa strategic training weeyaan macnaha inaynu cilmiyano blueprint ku dejino sidii aynu complan-ka lacagta ugu badan uga samayn lahayn waxaynu ka bilaabaynaa haddaba oo aan rabaa in aynu ka bilowno barnaamijkan aynu ka tirsanahay complan-kiisa ama kamanigan aynu ka tirsanay complan-kiisa maxay waa affiliate program weeyaan affiliate-ka macnihiisu waxa weeyaan qof dilaal ah oo wixii shaqadii u soo galay in wax dilaasho marka macnaheedu waxa waa commission based waxa lacagta lagu siiyo waa commission based waa sida aad u shaqaysato there's nothing guarantee ah lagu siinayo shaqo lacag la iska kaasiinayo adoon u shaqaysanayn just in faahfaahna ayaan rabaa marka hore waa disclaimer weeyaan qof kasta in uu fahmo in ay waxaan tahay commission based maadaama affiliate conversation badan ka hadlayno commission based macnaheeduna waxa weeyaan wixii aad u shaqaysato ayuun baad leedahay ma jirto lacag aad iska helayso iska kaa soo gelaysaa ma jirto istoorada waynu aragnay ama furniture istoorada ama meelaha cellphone-ada lagu iibiyo qof kasta dadba commission based ku shaqeeya the more customers ay keenaan ay cellphone ka iibiyaan ama the more customers ay furniture ka iibiyaan commissionkooda ayaa la siiyaa that's markaad store gash lagu soo yaacay lagu kala goobayo ma ogtahay marka it's commission based waxana weeyaan waa network marketing kiiba ka mid yahay network marketing macnaheedu waxa weeyaan in la isla shaqeeyo CEO-gan wuxuu yidhahdaa it's waxa weeyaan network marketing not work marketing maaha waa marketing la shaqeynayo maaha kii aan la shaqeynaynin marka taanayna fahna weeyaan waa shabakada isla shaqeynaysa weeyaan so that's a disclaimer lacagtu waxay ku imanaysaa marka la shaqeeyo that's one thing other thing aan rabaa ama shay labaad rabaa waxaan ku inoo biyaaniyo maanta waxa weeyaan business volume-ka lacagta inaga soo gelaysa in uu yahay up to 85% business volume-ka organization-kaaga macnaheedu muxuu noqonayaa up to 85% macnaheedu muxuu noqonayaa waxa weeyaan like every business volume oo soo xirata there's 85 cents lacag ayaa kaaga soo baxaysa every business volume there's 85 cents bay noqonaysaa like you have to maaragtay inaad
marka 85% lagu dhahdo qiyaasid weeyaan barbar dhigtid kambaniyadii kale soo waxa jirta MLM-ka ama network marketing kambaniyada ay ku jiraan suuqa shariikiga loo yaqaano waxa jira kambaniyada bixiya 40 to 60%. There's nothing 85% kambaniyada ma soo helaysid maybe one or two baa jira hadday jiraan maybe one or two baa jira MDC ka mid yahay ma helaysid meel business volume-ka ay bixiyeen up to 85%. So taana inaad fahamtid ayaa fiican haddii marka aad adigu tahay qof network marketing in badan ku jiray qiyaaso oo qiimayso wixii ma waxaad door bidaysaa in aad ka shaqaysiiso team tirada ka badan ciida ka badan oo thousands of people ah maybe 10,000 people ay ka hoosayaan or 40% business volume lagu siiyo so waxaad door bidaysaa less people like 5,000 people inaad ka shaqaysiiso oo 85% lagu siiyo more money aad samaysid adigu taad door bidaysa isweydii marka aad kamani soo gelaysa ama aad bilaabisid muhiimadaasa marka sababta xusuusiya in ay eegaan business volume kale in bakerynia muxuu yahay so qodob muhiima weeyaan muhiim jiddan in aad ila fahantaan what is the percentage ama maaragtay percentage kale nasiiniya muxuu yahay up to halkee buu istaagaa taasna waxa weeyaan mid kale oon rabo in aynu isla fahno okay my daily choice labada dariiqo ee qofku kaga mid noqon karaa waynu ognahay waxa weeyaan either inuu noqdo affiliate oo ah kii commission based ku shaqaysanaya or preferred customer mid kasta faa'iidooyinkiisa wataa oo ka hooseeya affiliate markaad noqonayso waa programkan ay maanta ka sheekeynayna qaabka lacagta loo sameeyo oo dhan aynu ka hadli doono customer markuu qofku noqdana isaguna faa'iidooyinkiisa wataa waynu ognahay markuu alaabada MDC iibsado customer reward program ka qayb qaadanaya discount buu helaya there's so many things maaragtay faa'iidooyin ula socdo qofkii customerka hana so there's two ways laga mid noqon karo marka inagu affiliate-kan xooga saarana oo ah kii dhaqaalaha ka sameynayay oo inaga oo kala maanta as a team marka ay maaragtay ka sheekeynayno qaabka lacagta u sameynayno marka inta aynaan haddaba gudagelin qaabka dhaqaalaha loo sameeyo waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo complanku waxa uu yahay iyo qaabka u qaybsamo compensation plan marka lagu dhahdo there's so many different things compensation planka hoos yimaada umbrelladaas jira ma ogtahay umbrellada compensation planka waxyaalo badan baa hoos yimaada marka compensation planki binary buu leeyahay unilevel buu leeyahay wix inaynu kala garanno inagu weeyaan companigeenu muxuu leeyahay u faas ah haddii company maybe aad taqaanay only binary system ku shaqeeya inagu maxaynu ku shaqeynaa systemkeenu waa that's the reason aan rabo in aynu waqtigeena energygeena gelino meesha ku habboon mogtahay marka systemkaynu u shaqeynaa waxa weeyaan waa two systems weeyaan Complank MDC waxa weeyaan binary iyo unilevel waxna waa hybrid compensation plan baa leedahay hybrid macnaheedu waxay tahay hadda laba wax la isu geeyay hadda laba xayawaan wax iska dhaleen hadda lion iyo tiger waxyaabo iska dhaleen oo kale waa hybrid animal baa leedahay gawaari waxa la jira hybrid cars leedahay jira ma ogtahay oo ka duwan gawaarida caadiga ah marka wax hybrid marka lagu leeyahay hybrid waxa weeyaan wax the best way waa very aggressive compensation plan weeyaan MDC waa two things combination of two things weeyaan laba shay la isu geeyay labadii ugu fiicnaa la isu geeyay haddii only binary aad taqaanay ama only unilevel aad taqaanay both MDC way leeyihiin wax unilevel oo adeeg ku gaar ah iyo wax binary oo teamka kaaga xiran weliba wuxuu u badan yahay MDC unilevel and that's why marketka waa sababta marketka marka aad eegtid aad maalin kasta u arkayso intaas oo leerayaalo ama MLM-ka hore ugu jiri jiray oo soo jiitay MDC oo soo galaya MDC oo kusoo yaacaya MDC just last year dhowr bilood dambe August September October November waxa soo galayay intaas oo leerar oo kala duwan oo MLM-ka 30 sano 20 years 25 years ku jira ilaa actress baa soo galay weyn ognahay marka sababta kaliya maxay tahay because Complan-kooda ayay eegayaan maahan inaad eegtid lacag yar baa sameynaya laakiin inaad eegtid how much money baad sameynaysaa sidaad u sameynaysaa lacagtani maxay tahay inteedaad lacagta sameyn kartaa ma wax hadda aad sameynayso joogsanaya mise waxa weeyaan dhaxalgal ku noqonay qaabkeed u sameynaysaa wixii dhan la eegoyn marka that's maaragtay reasonka real badani u jeclaadaan MDC waxa weeyaan waa hybrid complan waa very aggressive complan aad qoto dheer ninka leh Josh iyo Chana iyo xaaskiisu markii asaasiyeen waxay waa very balance inuu noqdo very fair inuu noqdo in maaragtay compensation balance leeyahay qofkani lugtani you are not balance maaragtay lugaha isma balance gareynaya soo lacag ma sameeyay there's so many things communication keena kambaniyada qaar soo waxaas oo dhan bay eegeen caqabado way ka tagin the combination kana soo saareen ma sha Allah so that's waxa weeyaan binary inay fahano iyo unilevel keen mid wax ku fiican yahay hadaba binary wuxuu ku fiican it's very fast wala soo shaqeynaya qof la soo dhigaya wala soconaya like tab building baa la wadaya
waxa weeyaan systemku ku shaqeynaya waa very super fast weeyaan laakiin problem buu leeyahay there's a cap ayaa jira kambaniyada qaar kuniyeen you can binary caps out marka maximum amount of money as samaysid maybe 80,000 a month ayu cap ku sameeyaa maybe marka MDC taalaftigeeda way ka taxadireen waxa jira kambaniyo badan oo binarygooda uu leeyahay cap hada salary cap ay naqaanada shaqaalaha ka shaqeynayno payrollkaagu markuu shaqo lacag ku soo diraayo ama maaragtay la qiimeynayo annual market review la sameeynayo shaqaale kasta waxa lagu shaqaaleysiyaa cap ay eegan the maximum amount oo la siin karo levelkaas la eegaa marka marketka la eego so ka badan laguma siinay so binary problemkiis waxa weeyaan mushkiladda uu leeyahay hadii if you cap out amount ka aad gaadho ka badan ma sameyn kartid intaas ku joogsanaysaa bisha ka badan laguma soo dirayo no more binary kasta eeg binary structure kasta company kasta soo eeg soo akhri soo dhigayso that's the problem okay mid kasta wuxuu leeyahay pros iyo cons ku leeyahay other unilevel waa slow ku socdaa waa very slow laakiin very steady way because waxa weeyaan isagu adigu ku gaari yahay waxa weeyaan like waxa dhisaysaa oo kale tafiirtaada baad dhisaysaa like wax ka farcamay adiga weeyaan gacmaha dadka u fidisay dhinacana dad baa ka xiga dhinacana dad baa ka xiga unilevelkaaga aday ku gaar tahay waa very slow dadkan hareeraha ka xiga xitaa kuma xidhno qolana qolo kuma xidhno qoladan bidixdaada qolada midigta kuma xidhno waa walaalo way aabaa wada dhahay aday ka farcameen laakiin isma yaqaanaan marka unilevel is very different waqtiga waxa weeyaan teeda kale balance uma baahna inay lugahaagu is eegaan isla ekaadaan uma baahna tan la ekaato waxyaalaha aynu ka hadli doono maanta majority-goodu waa unilevel weeyaan binary waan ka hadlaynaa unilevelka oo dhanna waan ka hadlaynaa marka mid kasta marka aan marayo qodobka saxan leeyahay that's unilevel weeyaan that's binary weeyaan so just aad ogaataan ila fahantaan hadhowtoole aad ogaato meesha aad energy-gaaga gelinayso ku isfangareynayso marka aynu ka bilowno customer acquisition bonus muxuu yahay binary or unilevel customer acquisition bonus ama cap waa unilevel aduu ku khaas yahay waxana weeyaan kii commissionka ahaa ee weeklyga ahaa every week la bixinayo ee kaa soo galaya macmiilka aad keensato so waxa retail commission kii weeyaan oo lagu beegaranayo up to 50% retail commission 50% kaas haddaynu tusaale ka soo qaadano executive levelka marka uu especially let's use 100 business volume kan isticmaalo in see complaint and example in see kaba soo qaad every 100 business volume ama kaaga soo xarootay bibicaha kaaga soo xarooday alaabta aad iibsay macmiilku ka iibsaday saynu ognahay binary-geenu in badan aynu ku sharaxna ganacsiga waxa loo qaybiyaa waxa jira complaint-keenu 80-20 rule baa jira wax la yiraahdo 80-20 rule macnaheedu waxa weeyaan everything oo aad sameynaysid ama Jumpstart bonus bin arki doonaha ama customer acquisition bonus ka ahaatee waxyaalaha badan ee noocaas ah volume ka soo xarato waxa loo qaybiyaa 80-20 rule wax la yiraahdo 80-20 rule kaas waxa weeyaan 20% oo kamid ah waxay aadayaan binary oo arki doono qodobada damba kamid ah 80% oo kamid ah 80% right away baa lagu deegareynaya waxa waa weekly-ga ku soo dhacaya so let's say macmiilka ka iibsada 100 business volume ka ah marka uu macmiilku soo iibsado 100 ka soo dhacay 20 waxay aadeen binary waa halgalkaaga markasta way aadayeen oo ururaysa 80 kamid ah right away baa lagu siinaysa 50% marka lagu dhufto intaasi $40 oo commission laga ku sameeyay ogtahay $40 commission kaaga soo baxaya 10 macmiil hadii wax ka iibsadaan let's say oo 80-20 lagu qaybiyo 400 cap ayaa sameysay bonus customer acquisition bonus baa sameeyay so you have to understand marka wixii aynu ka sheekeynayno si qoto dheer inaad fahanto all these ways jeedan dariiqa leenugu bahalaynayo lagu siinay lacag dariiqa kasta qaabkeedaad uga sameyn kartaa lacag ugu badan marka aad fahanto markaas adeetana energy-gaaga meesha aad ku isfangareynayso ama gelinayso waqtigaaga ugu badan aad ogaanaysaa marka capka ama customer acquisition bonus waa very important midda kana raba inay xusuusiyo waxa weeyaan dadka qaar ayaan jeclayn building a team ama inay team design organization ka farcamo so chance-ka ugu fiican weeyaan ay haystaan inta qaar bagana soo gala ko no anigu ma yihi team iyo dhis iyo maxay iyo training iyo afaaraha ma jecli anigu waxaan qofkaas soo gala raba inuu shaqaysto malaayiin macaamiilan haysta igu xidhan dadkaasaan labta ka iibinaya waxaan ka iibin baa la siinaya no problem be my daily choice welcome kamid noqo affiliate programkaaga capkaas ka adeego every week lagu soo rido khalas way isku dhamaatay marka haddii uu qof yahay xitaa teamka kamid ah qof aan recruitment-kii iyo teamkii iyo wixii iyo sponsorship-kii waxaan haleelinin this is the best way ee lacag ku samayn karaan weeyaan unlimited amount of money bay samayn karaan there's no limit lagu odhanayo oo bishan 10 macmiil baad keenta halkaa ku jooji no waad wadaysaa
intaad adigu keensan karto adiga iyo waxa weeyaan maaragtay afkaagu fiicnay gacantaadu waxay noogu xiga isagana customer mastery bonus bay noogu xiga isagana customer mastery bonus muxuu yahay isaguna waa unilevel isaguna waa sidii oo kale isaga waxaa la xisaabinayaa waa dariiqii sideedaad oo community soo kordhiyay bishii August last year ayaa la soo kordhiyay waxaa la xisaabinayaa isagu affiliate waxay tirsan karaan up to 75% total customer volume each leg ka soo gashay enroller fee-gooda ka soo gashay ay xisaabsanayaan so let's say haddaad doonayso 5,000 oo business volume inaad la timaado مثلا لو كله واحد حساب سنة 2,750 حق 2,250 حق ثلاث حساب سنة let's say هذا صار بدينا سميه وقتها مركا it's very easy معرفة قبل مركا وحدي سمين يصير إن الضحى كل اللي فهمته أنت اللي جربي لجرولكي هدي الأمور بالانس هنقدر هدي حاجة أنت نفسك كنستي أنت كل حاجة نفسك كنستي and then واحد سمين كرتا لعقت أنت على جواب بقولكم مقدار so it's very important إنه قف يفهمه إمسا أيام كسمين كرا customer mastery bonus كا بشي وبلا يسوي له هو unilevel up to واحد سمين كرتا 20,000 ما سمين كرتا team كاجا بيكون فرنتاي هدنا at the same time هو unilevel because أديجنا customer بعد يلا نيسا customer كاجا كلية سمين كرا 5,000 بدي كرتا ما وقتها لكن entire organization كاجنا والإيجيا waxaan ku dhigi kasoo baxayba la eegay enroller tree-gaaga so that's very important in la ogaado ayadana aad bay muhiim u tahay inuu qofku fahmo waxa ay tahay unilevel ba mise waxa weeyaan mise waa binary maxay noogu xigay global bonus pool oo iyaduna ah mid aad iyo aad iyo aad muhiim global bonus pool-kani waxa weeyaan wax dadku aanay si fiican especially teamkeena dhexda runtaa fiican aanay dad badan si fiican u fahmin because waxay ku xiran tahay shaqada aynu qabano ayay ku xiran tahay qofku marka uu global bonus pool-ka fahmo waxa uu samayn karaa lacagan xaddi lahayn hoosta xagga yar haddaad igala akhrido there is no limit of number shareska aad heli karta ma laha kambaniyada qaar waxay leeyihiin 1 share ama 2 share ama 3 share waxa kaloo ay leeyihiin sheerarku in ay ka bilaabmaan level gaar ah so sheerka wuxuu ka bilaabmaya markaad levelkaa tahay unbaa lagu odhanaya ilaa levelkaa gaadho sheerar kama qayb qaadan kartid bonuska noocana kan right away markaad soo geshid baad ka qayb qaadan kartaa it doesn't matter intaad joogto iyo levelkaa tahay iyo waxaa midna maaha ma ogtahay marka muhiimadda inuu fahmo weeyaan so sheerarkani dadkaad sponsortay waa unilevelkaagii dadkaad sponsortay aad keentay ee customer iyo affiliate isku jiraan kambaniyada qaarkood only ha ahaadaanu maybe affiliate-ka ganacsiga wada oo customer kuma jiro customer-kii affiliate waa lagu qaybinaya 2 or 2 ayaa lagu odhanaya ama 4 each ayaa lagu odhanaya waa combination of both ay noqonaysaa labadii la isu kala dhexgeliyey 2 customer iyo 2 affiliate 4 affiliate iyo 4 customer adigu kolba sida aad jeceshahay tusaale herdaysiya leaderboard-keena haddaad eegtaan waxaad arkaysaan dad haysta 76 enrollments haystaad arkaysaa 76 enrollments ayay haystaan dadka qaar subxaan allah 7 qof bay sponsoreen oo customer iyo isugu jira bahalkii waxay haystaan almost more than 5,000 business volume bay haystaan haddaad eegto xalay baan arkayay mar eegayay ma ogtahay so that's how much maaragtay ay keeneen ay soo geliyeen meesha business volume and that's how many people ay sponsoreen to this month ay sameynay training for us 17 January xalay baan eegayay maybe kordha qofkii u horreeyay who knows laakiin intaasu marayay tusaale hadday siiyo kaba soo qaad limit ma laha sheerarka inta idinka muuqan waxay idin sheegay earning potentialka uu leeyahay global bonus pool-ku si aan loo yaraysanin hadda last month sheerarka waxayn $89.30 bay ahayn let's round it maaragtay 90 aynu ka dhignaba 90 ba ka soo qaatay tusaale inoogu hagaago $90 bu beer share ahaa ma ogtahay konton share qofka hela ka waran there's no limit of shares ma ogtahay konton share qofka hela ka waran 90 ugu dhufo waa $4,500 waa one way ayuu ku sameeyey soma 50 share baad heli kartaa 30 share baad heli kartaa 25 share baad heli kartaa there's no limit share kaad heli kartaa ma ogtahay because intaas enrollment baad keenta 90 kii la bixinayay ba kontonkaa share ugu dhufo sharekiiba intaasu maraya ilaale mushaharka aad qaadato waxaa laga yaabaa aad u shaqo tagto subax kasta inay qulubin laabanto wada jibaar ku noqoto ayaa laga yaabaa so in la yaraysto ma aha this one way oo unilevelkaagii ah inaad yaraysatid so that's why ay important u tahay muhiim jiddan u tahay inaynu fahanno maxaa inoo unilevel maxaa inoo binarya how much time baynu ku isban karaynaa dhinac kasta it doesn't mean maaha inaad ilowdid
organizationkaaga maadaama complainkan unilevel u badan yahay doesn't mean ma ahan ujeedkayga inaad ilowdid organizationkaaga la shaqaynta laakiin amountka ugu badan of your time and energy inaad ku isbengaraysid meesha ugu badan ee aad doonayso inay lacagta ugu badan kaa soo gasho insha allah marka global bonus pool is very very waxa weeyaan maaragtay there's high earning potential ku jira maaragtay MDC qof kasta ka mid noqon karo and there is no maaragtay limit qofku odhan karo waan ku joogsaday midda labaad ee noogu xigta another unilevel bay noogu xigta Chumstar bonus waynu naqaanaa isaga waxa weeyaan qof marka aad keento aad ganacsiga la wadaagto affiliate adiga oo kala ee shaqada qabanaysa qabanaya waxaad helaysaa Chumstar bonus laakiin Chumstar bonus keenani imsa level baad helaysaa sideed ku helaysaa what the interesting story waa taa weeyaan ma ogtahay waa isbuucle waxaanu naqaanay meelaha qaar kumanida qaar waxa lagu siinaya Chumstar bonus just lacag cayiman baa lagu siinaya $50 qof baad keentay $50 right away qaado khalas waana hal qof baad keentay waa first level kaaga everybody on level kaaga koobaad intaas ku leedahay no this is different executive example kan isticmaalayna mar walba because maadaama uu yahay the best offer ugu fiican ee community-ga lagu soo galo ee majority-ga ku soo galnay maadaama uu yahay in ka bilownay haddii aynu kaasa kaliyaad ka eegno first level kaaga waxaad ku leedahay 50% baad ku leedahay Chumstar bonus just like customer acquisition bonus said 50% retail commission u lahayd oo kale weeyaan hadin kaarti ku noqono imsa level oo kale waa leedahay up to level 4 baad leedahay marka haddii industry-ga maybe aynu aragnay company-yo hal level ama laba level hadii ugu bataan ama halka level uu lacag cayiman aha on xitaa second level aanu jirin this one waxa weeyaan 4 levels ma halkaas ku joogsatay no master affiliate markaad noqotid 1% to infinity ayaad wadaysaa wax joogsi infinity waxaan joogsi lahayn ma ogtahay meel ku istaagta ma laha ma ogtahay waxa kale ee tan kaga sii khatarsan waxa weeyaan affiliate-kaagaasi bisha ay soo galeen ugu horeysa markay active noqdaan first month waxa ka heshay bonuskaas every other month ay order sameeyaan binary-gaaga u aadaya so taana binary-gaaga ma dhismaya halgalkiiba ku dhismaya binary-gaaga iyadoo unilevel-keed ka faa'iiday binary-gaaga u dhismaya every month ayaga kaligoodna ma waa affiliate kala oo dhan Chumstar bonuska ka faa'iiday so ayadana waa 80-20 rule-kii weeyaan so let's say affiliate-kaagii koobaad markuu soo galay 90 DP-gooda ay la yimaadeen halkan waxa ku tagay 20 xagana 80 right away weegi baa lagu siiyay markii farta laga saaray marka waa 80-20 tanina 20 binary-ga la geenayo 20% la geenayo binary-ga 80% usbuucii lagu siinayo dhammaantoodna leefaladaada oo dhan waa laga siinaya mid kasta waxa weeyaan 20% weeyaan oo binary 80% oo marka aad qaadanaysid marka waa muhiim jiddan inaynu taana fahano dadka master affiliate-ka waxa ay samayn karaan inta aan idin sheegay ay noqon karaan maximum earning-koodu uu noqon karo 50,000 per month uu noqon karo bal imagine that subhanallah marka iyaduna waa muhiim jiddan inaynu fahano maxay noogu xiga binary-geenu ku celcelinayna goorahanba oo unilevel-kii ka duwanaa wixii aynu ka hadlaynay unilevel bay wada ahaayeen adiga ku gaara binary-giina waa kan ayaan ku jeclaaday MDC waxa kamid ah labadiiba way isku geysteen subhanallah I can't stress enough wallahi tan markaan arko conversation bilaankooda markasta oo labadii waxa ugu wanaagsanaaba intuu urursaday toobsaday mid kasta dariiqa ugu wanaagsan hadana mariyo binary-ga dhamaantiin wayna wada naqaanaa isaga laftigiisu waxa uu sameeyay Josh Chana ay sameeyeen go'aansadeen in ay isaga laftigiisa waxyaalo badan oo binary-yada kale aanay lahayn u sameeyaan midda koowaad qodobka koowaad waxa weeyaan adiga 90 BP laga marba binary qualify inaan noqoto waxa laga rabaa only 40 PB or 80 PECP termination gordon xagga dambe ka arki doonaa maxay markaa 40 BP or 80 PECP maxay tahay waa personally enrolled customer volume weeyaan business volume ku naqaan marka dariiqooyinka laynoogu fududay binary-ga inaynu fahano taas waa mid haddii adigu aad tahay qof intuu soo galay raba inuu binary-ga dhaqaale ka sameeyo laakiin aan lacag haysanin uu product ku iibsado ama wax ku dalbado no problem baa lagu yidhi mushkilada ma jirto waxaad keensanaysaa customer-kii alaabta kaa iibsanayay oo 80 dhibcood ama 80 PP ku keenaya ee adiga kaa farcamay kaasaa ku activate garanay binary-gaagii binary qualified isaga kaa dhigay taas waa dariiqo waa laynoo fududeeyey dariiqada koobaad dariiqada labaad waxa weeyaan
pointskii ama volume-kii business volume-kii laynaga rabay markan binary qualify noqdo intee baynu gaadhnaa 1,000 maaha 900 maaha wax 600 maaha waa 300 weeyaan only 300 weliba your lesser leg weeyaan waa lugtaada yar inay noqoto oo aan just ahayn teamkaaga ee customerskiina noqonaysa organizationkaaga business volume-ka kasoo baxa oo dhan ayuunbaa lagu 300 oo keliya 300 oo qura ma badna waa only 300 to be binary qualified 40 or 80 or 300 90 meeshan waa laga saaray ma jirto it's good inaad 90 haysatid si aad faa'iidooyinkii kale u samaysid tii capkii iyo maaragtay jumpstart bonuskii wixii aad 50% uga samaysid it's good inaad 90 BP haysatid or 180 PEC fee oo ah 180 dhibcood oo customerka ama 90 adiga ah noqonaysa laakiin waa la inoo fududeeyey intaas inaynu si fiican u dhufnaa fiican kale la inoo fududeeyey waxa weeyaan qualificationka ka mid ah halkan 90 dhibcood baa laga rabaa dadka garbahaaga kaa hooseeya maadaama unilevelkeenu inagula talinayo inaynu wide tagno hadhowna deep tagno oo widekaagii xaggan laga yaabaa 5 kaa xigaan xaggana kaa xigaan 5 kale oo 10 hareeraha kaa xigaan hal qof kama imanayso haddii kaba soo qaad the worst case scenario waxay noqonaysaa qofkan iyo qofkani 99 lama imanin kani wuxuu la yimid 40 ku kale xagga xigaana 50 buu yimid labadaasaa 90 isku qaatay xaggana laba 90 isku qaatay 50 iyo 40 bay kala noqdeen taasina waa mid kaloo flexibility layna siiyey oo laynoo fududeeyey lama odhaninun waa laba qof inay 90 la yimaadaan waxaan 90 ka yar ma yeelayno lama odhanin qofku inuu 90 buuxiyo laguma odhanin adoo haddana haystaa dad badan oo dhinac kasta ay kaa xigaan haddana ma odhan kamaniyo ilowba illa waa inuu 90 qof buuxiyo uu buuxin waayo 40 ma la yimid it's okay ku kaloo 50 la yimid ina dhinacaasuna kaa xigo xagga kalena sidoo kale same thing top left your right saasaad samayn karta marka waa fududayn la fududaynaayo wixii qofkii siduu binary qualified u noqday kow dhibcihii baa la yareeyey adiga lagaa rabay 40 baa laga dhigay laba waxaa la yareeyey dhibcihii business volume-ka organizationkaaga 300 baa laga dhigay saddex waxaa la fududeeyey 90 dadka hareeraha ka xigay lama odhan ilowba qofka 90 kale inuu 90 afka ka jaro waxay leeyihiin okay combination of two people bay noqon kartaa left iyo right labadaba intaaba waa laynoo fududeeyey waxa kaloo binarygan uu leeyahay aan ku jeclaaday aan ka hadalay markii hore waxaan sheegay waxaa ma caps out sameeya oo meel ku istaaga limit yeesho sida salary-go kale waxbay ku email bay ku istaagtaa salary-ga ka badan qofkaas ma qaadan karo binaryada kambaniyada qaar waxay odhan karaan inta ka badan qofka bishaas ma sameyn karo it's a fact moogtay ka jirta MLM-ka lagu odhan karo bishii levelkaasi intaa ma dhaafi karo ama compensation Canada-ni it caps out bay odhanaya markuu halkaa gaadho 150,000 250k hadduu gaadho no more or 300k hadduu gaadho no more up to 2 million ayuu ka dhigay MBC that's monthly earning potential wax ugu badan ay ka hadlaan tiimamkan markay samaynayaan trainingka African American teamkeena kan iska farxan wax ugu badan ay ka hadlaan gabadha Rebecca Garrett la yiraahdo wax ugu badan ay ka hadasho weeyaan ay kuleedahay kambanigayga hore we used to cap out marka xilligaa la gaadho خلاص انت كبدن ما نسمين جري يلا وحي رب بحان كبدن ما قادن كرتid بشي والwaxa uu ku yaalo lagu leeyahay inta ka badan ma qaadan kartid racagteeda si aad leedahay no laguma siinayo because halkaas uu ka binary-gaas ku baxala ku joogsada that's the limit lagu leeyahay wuu siyaadiyay because ma binary problem ayaa saas marka wuu siyaadiyay MBC it caps out markay 2 million gaadho ayuu ka dhigay marka that's another thing binary-gan uu leeyahay master affiliate markaad tahay you can do that jana maxay ku noqotay gabadha koowaad ee lacagta ugu badan ka samaysa MLM-ka iyo akhriyo maqaalkii ka soo baxay businessforum.org ee la socday ee la eegay the female-ka network marketing-ka ku jira ugu lacagta badan ayada ayaa number 1 ka ahayd or number 2 ka ahayd something like that iyadii gabadha isla bedelayay so very very little weeyaan dadka noocaas lacagta inta la sameeya ayadoo waliba dadka ay haysataa recruiting wixii faraha ka qaaday dadka ay haysataa yarihiin aan badnayn because waxay focus ka saaraysaa organization waxay focus ka saartay in ay product development wixii ka war hayso niyada affiliate hamba u bilowda ganacsiga okay so that's one thing aan rabay inaad ila fahantaan oo binary-geena khuseeyo oo aad iyo aad u muhiima in aynu haysano the most aggressive compound markii binary-ga noqotay markii unilevel noqotay labadaba okay leadership check matching-kii baynu ugu tegay isagana oo bilaa isaguna
isaga laftigiisu muxuu noqonayaa unilevel isagoo teamkaagii ku xidhan haddana waa unilevel because waxa weeyaan waxaad yeelan kartaa intaas oo qof oo adiga kaa farcamayo first level 1 ku abad yeelan kartaa qaabka loo bixiyo xitaa laftigiisu waxa weeyaan very important inaan fahano waxay ku xidhiidhaa si aan kula waxba laynoo fududeeyo check matchingka company way leeyihiin level 1 iyo level 2 bay maybe sameeyaan ugu badan level 3 buu sameeyaa lama dhaafo up to 10 levels bayn sameynaa markuu master affiliate qofku yahayna wuxuu samayn karaa 1% oo sidii oo kale infinity check matching ah Josh actually maalin ku sheekanay wuxuu waxaan eegayay chana xaaskiisa check matchingkeedu u soo dhacay way inta page ahayd wuu tirin kari waayay xataa intaas oo page bay ku play check matchingkeedu I couldn't even count. I don't know, more than 20 pages. Some more 70 pages, something weird or terrible. Subhanallah, never give her the when Tirinker were basically how many pages I china. I check matching kid, Malin, so Hawaiian made very, very, very important. Hawaiian market la shaqeyso organization kaagi adigoo wide aadi markii hore hadana deep aadaya oo hoos u soconaya check matching kaaga soo dhacaya tira ma yeelanayo tusaale radan isticmaal weyn ogna waxa ka bilaabmaa 5k ka bilaabmaa so let's say level 1 kaaga qof waxaad sponsortay 5k waxaad sponsortay meesha qof waxaad sponsortay 5k baad gaadhay check matching ku bilowday hadduu qofkaas check u soo dhacay yahay let's say 10,000 baa u soo dhacay 30% of that 10,000 baa lagu siinaya inteed helaysa aduu 3,000 ama waxaad ku gaaysan waa one person weeyaan percent of that level 1 baa lagu siiyay 10,000 kii adiga waxa kaaga soo baxay 3,000 kaba soo qaad haddii 10 qof oo wada level 1 kaagi ay saa sameeyaan intaas kaaga soo baxdo waxadina ma aha that's why maalin hore uga sheekanay Robert Hollis oo ka sheekanay check matchingkii bishiis in binarygiisa ka badnaa wax kale qualification iska raba wax kale maaha marka organization-kaaga aad la shaqeysa 5 affiliate gaadha adigu 5k affiliate ayaguna binary qualified noqdaan ayaa adiguna aad helaysaa sidoo kale weliba tanna ila xusuusnaada iyaduna waa mid kale balance uma baahna in lugaha is balance gareeyaan lagu dhado left iyo right wana isla eegaadaan ilaa binary-gi wixii level yada hadana binary-gi bay ku tacalluqdaa la xiriidamo lugaha waxa isla eegaadaan right la gaago ha noqoto intaas dhibcood leftiguna intaas markaas check match lagu siinayo no ilaahu may hal tan lug shaqayso lugtan intay dheeraata dikiliga shaqaynayso waxaan ku dhahay power left u tahay tan kalena ay laba qof joogaan ever tahay oo maybe 100 business volume ama 200 yaalaan check matching kaagi uu shaqaynaya dadkaas ayaa laga soo goynaya level 1 kaaga ama 2 kaaga ama 3 kaaga ah ee power laga jooga ee shaqaynayay wixii ay qualification ki maadaama adigu haysato iyaguna ay binary qualified yihiin sida lagu siinay marka muhiimadu waxa weeyaan ma aha in maaragtay labadaad loo isleegaadaan markasta MDC iyo labadaad loo kala badan yihiin bad lacag samayn kartaa there's no such thing maaragtay sida community kale you have to be balance ma jirto ma ogtahay waxyaalaha ugu badan ay jana iyo Josh iska ilaalinayeen inuu qof markasta balance ka sheekay because level 3 gaadi ka farcama okay check matching maxay nagu xiga rank bonuses bay nagu xiga isagu oo billah marka rank bonuses isagu waxa weeyaan rank achievement bonuses actually nagu xiga qualification giis hosting ka arki doona actually waa la isku mariyay kala dambeeya marka qofku uu level ka gudbo uu level kale u gudbo sida in ognahay waxa la siiyaa lacag one time ah oo soo dhacda iyo lacag monthly ah oo soo dhacda labo marka leveladu way kala duwan yihiin qaar waxa laga rabaa maintenance period baa laga rabaa qaarna waxa laga rabaa no maintenance period right away baa lagu siinaya waliba maintenance period kaas oo ayada laftigeedu ay fududahay wax marka la barbar dhiga ayay fahanaa waxa fudaydka laga wado oo inoogu fududeeyay waxa halka inooga muuqdo qofku markuu 1k gaadho $100 waxa ku leeyahay hadduu maaragtay 1k gaas bishiisa damana 1k ahaado $50 buu helayaa bil u soo dhacaysa bishii 5k sidoo kale buu helayaa right away way ku soo dhacaysaa 10k right away marka la gaadho 50k waxa laga rabaa qofka in uu 60 cisho maintain gareeyo 50k gaas uu 5,000 helo 60 cisho waa only 2 months weeyaan you can maintain more time ka badan baad maintain gareyn kartaa halka network marketing company badan ay odhanayaan you have to maintain at least 6 months or 1 year 50k ga over time kaas aad maintain gareysan lacagta kugu siinayna ay ku odhanayaan marka like split payment oo kale kaaga dhigeen payment plan baa jirta marka alaab la iibsado Soomaa sidii oo kale ay ka dhigeen
waxaa kunaya waa in qofku intaa maintain gareeyo oo deetna loo yareeyo lacagtii saa loo siiyo lagu qaybinaya ma jirto halkani 6 days markay dhamaadaan 5000 kaaga qaado albaabka kala bax waxaad jecesha ku samee saasoo kale waxay isbedeshaa marka la gaadho 250k bay isbedeshaa ayadana lagaa rabo 90 days in xulada maintain gareyso 90 days markay saa u dhamaadaan qaado 25 kun ama gaari upgrade ku samayso ama gurigaa ku upgrade gare whatever aragtid u qabso adaa iskala jeebkaaga kusoo dhacday cid kaaga daba imanaysaana ma jirto split payment ma jirto waxaa kala qaybinaya ma jirto sanadno inaad sugto ma aha inaad lacagtaa hesho halka ay ka tahay kabanida qaar in aad muddo sugto 6 months or 1 year or maybe whatever oo time kuu qabtaan iyagu ma helaysid ilaa iyo xilliga aad gaadhid so muhiimadda inaynu fahno weeyaan meesha potentialka ku jira iyo waxaan ku day organizationkaagu maadaama companygeenu corney go wide and then go deep maintenance kuma adkaanayo because structureka la inoo design gareeyay companygeenu inagula taliyo inaynu u samayno ayaa ah wide and then deep because unilevel baynu u badannahay binary hal wax weeyaan so that's why we know that CEO again every leader go wide and then go deep so taas inaynu samayno in raacno weeyaan insha Allah hadii la qadaro inaguna taan requirement kira markaa jira isagana insha Allah aynu ka hadlayno maxaa sidii aad u gaadhi lahayd rankiga lagaa rabaa seed ku gaadhi kartaa maxaad samaynaysaa dariiqeebaad maraysaa ma adka run ahaantii rankiga koobaad 1k buu ka bilaabmaa markaa builder iyo director iyo waxa executive ka soo gudbaynaa waxaan pointskan BEP iyo waxaan waxa weeyaan wixii adiga ama macmiilkaaga lagaa rabay laakiin aad rabto 1k inaad noqotid waxa la doonayaa inaad haysato 9 dhibcood 90 PV waa personal volume amaba haddii aanad haysanin waa waxa kale la inoo fududeeyeen MDC ku jeclaaday waxa weeyaan inuu qof haysto 180 customer volume ah oo waliba noqonaysa waa sidii maaragtay binary qualification kii dhinacu doono ka imanayay labada qof loo qaybinayo kale laba customer baad u qaybin kartaa saddex baad u qaybin kartaa 180 it doesn't have to be one maaragtay customer ma jirto saddex afar customer baa 180 ku keenay customerkaagu in ma yahay qofkan macmiilkaagu ma yahay adiga wax ma ka iibsaday ilaa muu 40 DV kaano it's okay 20 muu kaano it's okay whatever waa inay ku buuxsan 180 markay ku buuxsanto 180 kaasi PEC fee then yes 1k affiliate waa 1 qualification bad buuxsay the other thing waxa weeyaan free enrollment inaad la timaadid oo adiga aad sponsortay inaad la timaado oo mid kamid ihii uu 90 DV yahay saddexdaba maaha mid kamid uu yahay iyo 100 dhibcood haddii aad 10 qof bishaa keentay oo mid kasta 100 business volume ku adeegtay intaas aad 1k ku tahay ma ogtahay xitaa organizationkaagii kale adoon aadin adigoo soo galay haddaad 10 qof sponsortay ila wixii waa affiliate program qof kaaraba website fee iyo annual fee yani enrollment fee iyo maxay fee iyo ma jirto qofkii soo galay wuxuu jeclaa buu iibsaday affiliate program waa free waa laga qaaday waa laga weydiray lacagta lagu geli jiray horna lagu qasbay lagu leeyahay ma jirto qofkii lagu ma qasbay lama laha iibso community package ku ururiyaan bay qornayeen package ka mooyeen wax kale ma qaadan kartid it's their flexibility halkan waad soo gashay makeup baad iibsan skin care baad iibsan CBD baad iibsan sprayada iibsan waxaad rabto qaybta fuel factor x baad iibsan it's up to travel baad iibsan aday ku taala whatever aad iibso flexible weeyaan marka muhiimaddu waxa weeyaan enrollment dadka aad keentay customers xitaa hadday yihiin waa lagu tirnaya business volume organizationkaaga ka soo baxeen aday kaa soo baxeen hadday xitaa wax kaa dhinaadaan organization baa kaa sii hooseysa dadkan aad keentay dad bay keenayaan ma ogtahay that's why it's good wide and then deep ma ogtahay marka muhiimaddu waxa inaad taa fahanto 50% leg room ayaa halkan ku qoran anigu 1k markaan noqonayo waxaan ogahay labada lagubay kala badnaayeen taa laftigeeda flexible baa laga dhigay somehow somewhere baa la update gareeyay systemka 1 leg bay kasoo baxeen almost wax ku dhow 700 dhulka kalena 300 baa kasoo baxay so way kala badnaayeen ani 1k 50% leg rule kii may ahayn so taasina waa muhiim inaynu ogaano every single time company wax ku fududaynaya marka waxyaalo badan baa la fududeeyay marka taana ogaada insha Allah saas u soconaysaa 5k 10k waxa kale oo aad ula dhacay oo aad uga helay bal hadda ila eega qofku 1k markuu yahay iyo markuu yahay maaragtay master affiliate ku lacag ma sameynaya soo ma way kala lacag badan yihiin haddana mid kasta waxa laga rabaa 90 DV lama odhanin master affiliate waad dheregtay adigu lacag waa inaad badiso waa 200 BV la kaale lama odhan 300 BV la kaale lama odhan no waa 90 woman wax lagu kordhiyay ma jirto from executive all the way master class waa 90 kama badna marka taana inaad fahantaan baa fiican
flexibility aad u tiro badan baa meesha taalo oon innaba caadi ahayn subxaan allah trigan xataa ismuu bedelin midna lama odhanin intaa ka badan keen just waxa weeyaan business volume kuma kala badnaanaysa because levelka wuu ka badan yahay levelkani kan wuu ka weyn yahay waanu ka badan yahay waanu ka lacag badnaanaya marka taasina inaynu fahno lag rulekii breakdownkeedu waa kan iyadana qaabkaasaa loo samaynayaa 1k qofku san weeyaan 5k waa sidan 10k waa sidan 25k waa sidan 50k waa sidan in qof kasta waxa inta laga rabo master affiliate markuu yahay 10 affiliate 10k markuu yahay everything halkanay ka muuqataa inay 1 million tahay dv kana tahay almost maaragtay 5k marka noqonayso 2500 so muhiimaduna enroll tree-gaaga ku xidhan tahay dhinac kasta maaragtay inuu lagan xaggan ka soo baxay intan xaggan ka soo baxdo imagine let's say waxaad haysataa 10 baa hareerahaaga jooga 5 iyo 5 example ka hor haddeen raacno mid kasta waxbaa lagu eegaya laftigaaga iyo right-kaaga baa la eegaysa ma enroll tree-gaaga markaad eegtid mid kasta waxbaa qof ka soo baxaya dhinac kasta waxbaa ka soo baxaya so even only 2 people kuma xidhni wuxuu ku fiican yahay laba qof uu wax kama sugaysid that's why MDC dhaqaale ka samayntu u fududahay waxaad arkaysaa dad 1k ama 5k ah oo intee ka sameeya bishii ayaad arkaysaa maxaa sababay question level badan bay leeyihiin so inaynu rulekii raacno weeyaan wide spallari saa qacmaha dheh and then deep hoos aad adona qacmayga la arkay maanta dhasanaan lahaaye qacmaha saa dheh wide and then go deep inuu qofku wide aado and then deep aado ayaa muhiim ah marka wixii samaynaayo okay maxay noogu xiga I think terms and definition bay noogu xigta waxa ay yihiin affiliate iyo independent customer preferred customer iyo affiliate iyo PD iyo DV enroller fee-ga PEC fee binary qualified and pay period waxaas intaas bay noogu xigta okay complainkeedii saasuu ku dhammaaday waxa aan rabaa inaynu ka yara hadalno waxa loo yaqaano systemka 10 and 2 loo yaqaano waxa weeye very very important weeyaan kan inaynu ku hadalno aad bay muhiim u tahay wax kalena maahay waxa weeyaan systemkan haddii aynu fahanno way noo fududaanaysaa wax kasta very simple si ogeena soo diyaariyey waxa weeyaan qofku inuu xusuusnaado markuu ganacsiga soo gelaayo meesha uu ka bilaabayo qaabka uu bilaabayo ciduu la dhiilgaraynayo audiencekiisu cidday yihiin inaad soo gasho tirahdid okay I'm gonna be like 7-figure earner baan noqonaya within the next 3 years waxaan rabaa inaan intaa ka sameeyo millions ka sameeyo 3 sano soo socdan 4 sano dad saasana aan soo saaro hamigaasaa kugu jira ma xamaasad baad la soo gashay laga yaabaa dadka aad sponsoraysa inaanay dad noocaas ahayn oo raba inay 6 figure sameeyaan laga yaabaa inaanay ahayn marka we have to remember dadku yihiin saynu la dhiilgaraynaynaa qof kasta maqaamkuu joogo inaynu ku maamulo the golden rule halkan laynoo sheegaya waxa weyn 10 and 2 systemkiisu very important ah 80% dadku 80% weyn hadda 80% of people aynu naqaano ama around us waxay u baahan yihiin 500 ilaa 1,000 bishii inay sameeyaan noloshana ku yara adkaatay waxay doonayaan inay 500 ama $1,000 bishii sameeyaan intaasaa ku filan kana badan expenseskooda ku kaabayaan layrka yar iyo biyaha yar iyo maaragtay gaariga insurancekiisa iyo waxoogaa ciyaalka ugu iibinayaan bes wixii extra activity ay ku bixinayaan no more than that uma baahna 80% 20 baa kuu soo hadhay 20% ka 15 ka midihii jecel yihiin wiigii inay intaasi soo gasho 500 ama 1,000 inta u dhaxaysa ay soo gasho ayaga laftigooda hamigoodu yar fog yahay waxa kulan wiigii lacag inta laga barbaa inaan sameeyo waa qof yarad kororsiga jecel haddaba 5% soo hadhay waa dadka doonaya 500,000 a month per day inay sameeyaan baan ujeeda cafwan maalintii taasay rabaan marka haddii inta aynu fahanno intaasoo kaliya haddaynu fahanno only this 100% kiiba laynoo qeybiyo 80% of people inay yihiin dadka noocaasa majority-ga aad taqaana Facebook-aa ku jira waa saas baa laga yaabaa dad saasun doonay wuu ku eegaan oo 7 figure 8 figure waxaa ka sheekeynaa lagu arkaa qofka nimankii hore waa dawaqsan yihin they don't think it's true ma og tahay maba aaminsanaba haddaad tiraahdo waxaan kaa caawin karaa sidaad 200 bishii u samayn lahayd amaba extra expenseskaaga u kafargarayn lahayd ama extra activity-gaaga ciyaalka school activity-gaaga u kafargarayn lahayd maybe inuu lagu aamino marka know your audience horta marka hore kadib markaas saa samee 6 figure marka inoo dambeeyo saddexda shay inuu baahnay marka inaan sameeyno maxay yihiin maxay noqonayaan
marka u horeysa dadkaaga tiimkaaga ka mid ah first thing first waxa ugu horeeya weeyaan in aynu rankiga kula dadaalo so tiimkaaga kula dadaal 1k 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 soo saar 10 qof oo min 1k ah tiimkaaga soo saar ama 5 qof oo min 1k ah 10 min 1k markaad soo saartaad na 10k baad kaga soo tuuraysaa ma ogtid because 1000 baa laga rabaa qofkiiba inuu 1k ku noqdo adigana maxaa laga rabaa 10000 soo ma waa 10k baad markiiba gaadhay in levelkaaga haddii 1k noqdaan ayaguna hoos bay u dhaadhacayaan inta 5k buu noqonaya iyaguna 1k soo saarayaan badan haddii ranking horta lagula dadaalo very important get them pay marka hore lacag ha sameeyaan dadkii ha arkaan ha aaminaan itusoo itaabsi ha noqoto sheekadii lacagtii markay dhadhamiyaan soomaalida waxay mahmaan jirta dhadhamiyaan hadrigaa kama sii daro soomayn markay dhadhamiyaanay arkaan wixii way believe garaynayaan believe check baa leedhaa waxan believe checkooda samee maantay saa u dhadhamiyaan ay dhaqaajinayaan iyaguna walle tanoo kale aniguna waa inaan intaa in leeg soo saaro tiimkaygana kula dadaalo inay sameeyaan wixii way faa'iideen ma ogtahay profit baad u samaysan marka muhiimaddu inaynu wixii eegno weyn 10 and 2 saynu isticmaalna haddaba just very simple system weeyaan 10 and 2 isticmaalkiisu 10 and 2 waxa lagu dhiday waxaad heshaa ugu yaraan 400 customer acquisition bonus maxay ku imanaysaa waxa weeyaan 10 customer 80-20 loo qaybinayay 20% la geenayay binary-ga 80gana right away lagu beegareynayay 800 business volume kiba times 50% lagu dhiftay 400 bay noqotay very simple waa saas ma ogtay afartaada boqol waad heshay global bonus poolkii lama adigana dad baad sponsortay waad helaysaa iyadana sharekii waa lagu siiyey 1k rank baad markiiba kaga soo tuurtay 10 and 2 systemku waa saas u noqonaya volume markaan xisaabino aynu eegi doonaaye one rankiina maybe jumpstar bonuskaaga baad heshay wixii oo dhan marka isu taageeyo bishaa waxa aad helaysaa right away $760 bay ku noqonaysaa dad xisaabsato marka 10 and 2 muxuu noqonaya laba customer laba affiliate baan u jeedaa iyo 10 customers ku noqonaya 10 and 2 gaagi ay noqonaya mid kasta markuu la yimaado marka 100 business volume-kii macaamiishaadii iyo maaragtay affiliate-kaagii 12 bay isku noqdeen somaa 200 BV ay noqonayaan adu 1k waad gaadhay 400-kaaga waad samaysay waxaan kuri global bonus poolkii waad noqotay ranking bonuskiina waad heshay intaasoo dhan jumpstar bonuskiina waad heshay oo affiliate-kii waad ka heshay maogta aad soo gelisay marka waxa weeyaan very important 10 and 2 systemka in la fahmo qiiman un baa jira 10 and 2 systemka mooyaane wax kalaba aan raacna milka soo kornaya okay waxaan keenaya intaas oo customer iyo intaas oo affiliate systemkaan raacaya 10 and 2 system tiimkuu kobcaya haddii aad systemka raacdo haddaba halkanaa la inoogu qoray if you duplicate that system maaragtay haddaynu koobi garayno on level 1ka iyo waxaan ku wadno aynu kaga soo tuurno maaragtay oo tiraahdo bil kasta aniga waxa iga go'an in aan keeno laba affiliate iyo 10 customer baa iga go'an systemkaas ma raacaya 90 days baan raacaya kaliya ka tiraahdo 5k waad ku gaadhaysaa bisha koobaad labaad saddexaad saa ku wadi customer base-kaagana wuu badanayaa waa uni level-kaaga weeyaan oo waxaa da customer acquisition bonuska lagu siinayay at the same time customer mastery bonuska kasoo baxayna waa taasay noqonaysaa tiimkaagana wuu dhismaya affiliate-kina wuu dhismaya binary-gaagana waad dhistay uni level-kaagana waad dhistay 10 and 2 markaad raacdid weliba waxaad badsatay uni level-kii baad aad u dhisatay wide-kii baad aadaysaa dhiibkiina wuu imanayaa customer markay noqoto 10 customer waa uni level-kaagii affiliate-kina waa uni level-kaagi laakiin wixii kasii farcama organization-kaagi ba noqonaya so dhiib baad aadaysaa marka it's very important in fahno 10 and 2 system oo duplication lagu sameeyo dadka isku wada socod maaha qofkii awooda duplication ku sameeyay I highly recommend inay ku sameeyno duplication naftayda faraya idinkana waa faraya insha Allah iska imanaysaa haddii bisha koobaad moodo talabaad moodo iskana ka ma ogtahay wax kasta waa dadaal laakiin systemku waa la inoo diyaarisan oo sameyn lahayn abta wuxuu soconaya super affiliate qof markuu yahay levelkan gaadho customer base-kaaga intan uu noqonaya affiliate-kaaguna intaasay noqonayaan imagine earning potential-kaagu intuu noqonaya lacagta kaaga soo baxaysa waa very easy marka intaasaan kusoo koobaya complainkeeni insha Allah biidni illahi alkariim stop share baan odhanaya in aynu waxa weeyaan just eegno muhiimadda ay leedahay uni levelku oo kala eegno muhiimadda uu leeyahay binary-gu conversation balaankeenu aad iyo aad u fiican yahay it's unmatched marka lagu leeyahay unmatched marka lagu leeyahay waa sidan haddii ay jiraan qaar ka wanaagsan waynu ogaan doonaa laakiin so far
network marketingka weli qof ka mid ah ma arag oo leh MDC complankooda wax maajgareeya baan hayaa ma jirto dariiqooyin baa markasta lagu daraa isaga laftigiisu wuxuu rabaa kambanigii retention wax la dhaha inuu sameeyo oo uu affiliate iyo customerki labadiba u joogaan so there's so many things ay ku darayaan maxaa loogu daray customer mastery bonuska bishii August that's the one reason retentionkii weeyaan shaqadii aad qabanaysay unbaa dariiqasteeda lacag lagugu sii lagugu daray very simple weeyaan marka taa inaan fahnaa muhiim insha allah jiddan ah unilevelkii waynu ka soo hadalnay bannergiina waynu ka hadalnay maasha allah tabaaraka allah si fiican baynu u fahanay waxaan rajeynaya insha allah in aynu ka wada faa'iidaysano complankeenan back office ku jiraa waa very easy teamkana waan kusoo sheer garaynayaa isaga iyo tenant tugaba haddii laga qadaro si recordingka markaad daawataan qofkiina halka ugu arko maaragtay u follow gareeyo PDF haddii laga qadaro biidnillahi alkariim intaasaan kusoo gabagabaynaya waan joojinaya recordingka insha allah waxaan kula talinayaa qof kasta inuu mar iyo laba iyo saddexba ku ceshto recordingkan oo uu daawado oo uu fahmo oo uu qaliyo buu qaato oo uu qorto doonaya inuu customer focus keliya ka sameeyo customer base dhiso dhisi kartaa ka doonaya inuu just sameeyo maaragtay customerkaas iyo isla sameeyo everyday global bonus kulkii wixii sameeyo wuu samayn karaa all these ways lacag baad ku samayn kartaa dhaqaale laakiin you have to know energygaaga iyo timekaaga halkee ugu badan aad ku isban garaynaysaa tiimkaaga inaad la shaqayso unilevelkaagana dhisato bow that's why we yidhahdo CEO gani Josh go wide and then go deep waxaa tahay marka hore caleemaha la baxay hadhowna xiiseed taagtay insha allah